gudoomiyaha shirkadda daabacaadda casriga ah ee Sagaljet Cabdi Yuusuf Aar ayaa qada sharaf ku maamusay Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo buug uu sugaantiisa ka qoray la daabacay. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay abwaano tiro badan, qorayaal, ganacsato, siyaasiyiin, dhakhaatiir, saxafiyiin iyo marti sharaf kale. ugu horreyn wariyaha rugcadaaga ah ee Abiib Imaan Xasan ayaa hadal ka jeediyay xafladdan isagoo fasiraado ka bixiyay ereyo suugaaneed oo madasha lagaga sheekaystay. maanta haddii aynu hayno markaa buug oo Xasan Weersame ku qoran yahay, waxaynu haynaa Xasan oo inala jooga, Xasan oo aynu akhriyayno, Xasan oo inoo wehela guryaheena markuu buuggan yaalo. de Xasan baa guryaha inoo fadhiya, guryaheena markuu buuggan yaalo waxa weeye taariikh baynu haynaa, suugaan baynu haynaa, fan baynu haynaa. Abwaan Siciid Ibraahim Dool Guray iyo Abwaan Yuusuf Ceegaag ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda qoraalka iyo kaydinta suugaanta. aniga Xasan Daahir Weersamana marna waa macallinkaygii, marna waa saaxiibkay. run baan kuu sheegaya, tartamadeedii ugu horreysaan soo galo isagaa wankaysiiyey oo kaas intuu tartan naga qaaday lambar wanka isagaa siiyey. macallinkaygu inuu buug maanta soo saarana ardaygiisii aad ugu faraxsan baan. Xasan Daahir oo runtii abwaan culusa oo maxaan dhahdaa abwaanada waqtigan aanu maxaan dhahdaa ku dayarno oo dadka suugaanta imika bilaabaya ku daydaan oo jiilba jiil buu hogaaminaya. haddii isaga gaariye macallin u ahaayeen imika aanu dadkaan odhan doono macallin buu ahaa, maalin baanu halkaa wada fadhiisanay oo taariikhdaanu ku dari doono. waan ku faraxsanay inaanu maanta buuggiisii joogno. aqoon-yahan Maxamed Iimaan oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon ee bulshada ayaa geestiisa u mahad celiyay shirkadda Sagaljet iyo gudoomiye Cabdi Yuusuf Aar. buuggan dug yar maanta aniga farxad gaar ah ayuu yahay inaan gardaadintiisii koowaad ee ufka u soo baxo, inaan xafladii lagu shaacinay ka soo qayb galo. sababtuna wax kale ma aha Xasan Daahir Ismaaciil Weersame wararka aanu inta badan suugaanta aan saaxiibka ku ahayna shakhsiyan siyaabo kala badan oo sheekooyin badan aan saaxiib ku nahay. dabeeto waxaan ahaa dadka ku dirqiya Xasan inta badan. xasanow balde wax soo saar. gudoomiyaha shirkadda daabacaadda casriga ah ee Sagaljet Cabdi Yuusuf Aar ayaa isna hadal ka jeediyay munaasabaddan. runtii munaasabaddan oon ku maamusay saaxiibkay Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame iyo buuggiisa oo ku lamaan farxad weyn bay runtii marka koowaad ii tahay. marka waxa runtii sharaf iyo farxad maanta ah in buuggii uu final yahay. arrintanna waxaan horta u sameeyay Xasan waan soo yara dabayo waxaan isla Xasan waa dadka perfectionistka maalin walba wuxuu ugu dhahdaa war meel yar baan ka soo bedelaya, xaraf baan ka soo bedelaya. horta buuggu inuu soo baxaan doonayo in la launch gareeyo oo uu dhawaan ifka u soo wada baxo, inkastoo uu soo baxay imika ayaa horta qasab noqotay. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. ugu dambeyn Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil Weersame oo ah abwaanka munaasabaddan lagu sharfay ayaa kelmado mahadnaqa ka yidhi gunaanadkii xafladdan. tacabkoodii inaan ilaahay maanta dibadda u soo saaray 70 maasa buugan ku yaala kuma yaalaan heeso sahaygii iyagu buug kale noqon doonaan, laakiinse waxa ku taala maasooyinkan baa ku yaala ilaa 7 maaso ayaa buugan ku jira. kolka 6 chapter baan ka kala dhigay. waxaan kaga dayday macallinkaygii gaariya buugiisa wuxuu u kala saaray berigii googos iyo guluf iyo global iyo guubaaba afartaas oo kala saaray suugaanta oo yani ay intaas oo mawduuc bay kaliya 6 baan anagu kala saaray. kolka waxaan ka kala dhigay baane oo gabayadii siyaasadda ah, boholyo oo kuwii jacaylkii waxa quseeya, burde oo kuwii nabi amaanka, baroor diiq abwaanadii ugu horreeyay dhintay maasooyinkan ugu baroor diiqayna iyagana cutub baan ka dhigay iyo cutub aanu bixiyay baxaali maasadii ka leysay dabaayaca bini'aadamka iyo xaasi iyo qolo isku jirto barax u bixiyay. 6 chapter uu ka kooban yahay isugu jira gabayada siyaasadana ugu badan. kolka ereyga dug yar waxa weeyaan marka reer galbeedka iyagu beertay qodayaan ee dib ugu yar deela maaragtay in yar hore u soco leeyahay ayaa dug yar la yiraahdaa. waa in yar hore u soco. annaga gabayga waxa maasada halkan ku jirto dhamiibo waa in yar hore u socda. buuggan dug yar ayaa la filayaa in dhawaan lagu soo bandhigo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa.